magaalada Gaalkacyo oo ku taala bartamaha dalka Soomaaliya isla markaana ay soo hogaaminayeen mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo midba midka ka dambeeyay uu qabanayo shaqooyinka kala duwan ee loo doortay oo ahayd u adeegida bulshada ku nool degmada Gaalkacyo si loo xoojiyo kalsoonida shacabka ku nool degmada Gaalkacyo oo markasta tusaale u ahaa bulshooyinka kale ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. 22 Oktoobar ee sanadkan ayaa xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxay maayirka degmada Gaalkacyo ay u doorteen Cabdiraxmaan Sheekh Xasan halka ku xigeenkiisna ay u doorteen Maxamed Cabdi Cilmi. haddaba muddo 100 cisho kadib maxaa u qabsoomay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo xubnaha golaha deegaanka degmada nabada ku hagooganaya colaada ka hajiraya deriska hadalkiisu deeqo colaada ka hajiraya deriska hadalkiisu deeqo hambalyo waa Cabdiraxmaani hambalyo waa Cabdiraxmaani hambalyo waa Cabdiraxmaani hambalyo waa Cabdiraxmaani kadib doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada oo soo martay marxalado kala duwan shacabka reer Gaalkacyo ay heleen mas'uulkii hogaamin lahaa ayaa waxaa doorashada kadib wadooyinka magaalada isugu soo baxay shacabkii ka warsugayay natiijada doorashada waxaana xaaladda habeenkaas ay ahayd mid soo xirtay loolan doorasho aad u adag dhalinyarada Gaalkacyo horay u dhowraya inuu soo daro waa hogaamiye xurmeen badan xuquuqda dhalinyarada shaqo iyo xirfad iyo xuquuqdooda siin kara deegaanka xasilin kara November ee sanadkan ayaa maamulkii hore ee degmada Gaalkacyo waxay xilka ay ku wareejiyeen maamulkii la doortay oo uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan iyo ku-xigeenkiisa waxaana la wareegida kadib maamulka degmada Gaalkacyo uu bilaabay maalmo kadib gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo ay wehelinayaan xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxay bilaabeen kormeer ay ku tagayeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Gaalkacyo waxayna kula kulmiyeen maamulada xaafadaha iyo shacabka degan iyagoo ka xog wareysanaya baahidooda adeegyada ay u baahan yihiin iyo sida ay ula shaqeyn lahaayeen maamulka cusub ee degmada Gaalkacyo. sidoo kale kormeerada xaafadaha ayaa waxaa barbar socday kulamo kala duwan oo maamulka degmada Gaalkacyo uu la qaadanayay odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada deegaanka iyo qaybaha bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo si talooyin ay ugu biiriyaan loona horumariyo degmada Gaalkacyo inuu wax uu ka qabto 5 ka mid ah balanqaadadii uu gudoomiyaha uu ku galay ololihii doorashada kuwaas oo kala ahaa qorshaha dib u dhiska haykalka maamulka ee dowladda hoose qorshaha horumarinta amniga degmada qorshaha horumarinta maaliyadeed qorshaha horumarinta howlaha guud qorshaha horumarinta arrimaha bulshada. haddaba maxaa laga qabtay qorshooyinkaasi qorshaha dib u dhiska haykalka maamul ee dowladda hoose muddada 100 cisho uu jiray maamulka ayaa waxa uu dayactir uu ku sameeyay xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo sidoo kalena waxaa la qurxiyay banaanka iyo gudaha xarunta dowladda hoose ee degmada waxaana muddadaas kadib dib habeen buuxda lagu sameeyay lana hagaajiyay amniga degmada Gaalkacyo sidoo kale waxaa qalabeynaya dayactir guud lagu sameeyay xafiisyada uu ku shaqeeyo maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo
waxaa tayeen iyo habraacyo dhammaystiran loo sameeyey shaqaalaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaana mushaaraad loo bilaabay qaar ka mid a shaqaalaha dowladda hoose sidoo kale waxaa la dejiyey qorshaha istaraatiijiyadeed ee 5 sano ay ku howlgali lahayd dowladda hoose ee degmada gaalkacyo haddaba qorshaha horumarinta guud maxaa laga qabtay maamulka ayaa xooga saaray furista wadooyin badan oo xirnaa kuwaasoo qaarkood ay dhib badan ay ku qabeen shacabka ku nool degmada gaalkacyo sidoo kale maamulka oo kaashan iyo ganacsatada ayaa furay wadooyinka qaar ee suuqa dhexmara kuwaasoo markii hore ay adkeed in wax laga qabto haddii uu dab u ka kaco ama dhibaato ay ka dhacdo suuqa gudihiisa waxaana furista wadooyinkaasi soo dhaweeyay bulshada iyo ganacsatada suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo maamulka cusub annaga xaq baadir baa ku taagnayn te wadaan degan ganacsanayna waan soo dhaweynayaa wadaan helnay wad maasiyan leeyahay korna Allah ka dhigo awal wadooyin wada qubneed waxaan laga ganacsan jiray wada baa degan Soomaan xaqaas aan deganaa beeshin baasho sii dhigtay ulxun baabshana sii dhigay oo waxaan dhahay maya qof fiican baa iska dhigay hadda waan ku maadsan yahay aad buu maadsan yahay dooraan ugu dambeysay joog sharci darra lagu dhistay بالكس فوتبال بالكس على بالي واحد سوون إلهي كبدي نوي إلهي ونوكر ضد كشغل هاي إلهي ونوكر كسوا كوك فشل لا حمشي بس كده حراري بتغنى بيل بيجلان بالكس واحد بالجرام بقى مال مرة ولا يهلكي حد الواحد ويمجال الله يربى بحي طبيعي ما بحث الناس ضايع هو نفسه جلس هو صباح هو المركب البري لكن جس معناه مجال مجال كيسة قلها الدجاجة وديها قبل جد ما أنت واحد لا ما بديش حافظة ديش حافظة لما أنت كرصات جاك صور مر جد وهم بليانية يا شعب كلنا شعب وديار بويا الشغل على وضع باللعب أنت ومانوين أو أي نسيب تيسوق قالكايو إن أي هشوب بلعسو علن تاسوء لجيست أنترولوجا وريح لمايركا يمايركا فينكي قداميها جناستي دمان جناستي رجال كايود جارهان رجل ميت waxaan leeyahay maanta dhamaanteen shucuurteen mid la soo koobi kara maahan aad baan ugu faraxsanahay in suuqa gaalkacyo intaas sano biyaha iyo wasaqda fadhiyeen oo meel loo dhigay waayay maanta maayirkii cusbaa ee gaalkacyo loo doortay shacabku ay ugu doorteen uu samata bixiyo arintooda uu istaago gacantii u horeysay u qaaday noqoto in suuqa ka saaro biyaha iyo wasaqda magacayga waa farxiyo waxaan u ambaleynayaa maamulka uu hogaaminayo Cabdixaan Sheekh Xasan والله هذا وفرح سنة وأرين الله بعنا وح قريبين كقاعدة جناستها لما هو سود وين عدنا شعب وكنا المجال ده قال كعيا وحسجار وما لنا يا معمل كعصب يسبدل كله معنا وحلنا همبلي وجوليس سوق قال كعيا إلها أي دولة دوساي كهش الدخل جا وأنا سببته ومعمل كحوج أسعري إن لفرو ودين كحرنا إن لهلو جدد بدنو دسن ayaa baahida ugu weyn oo ay qabeen shacabka ku nool degmada gaalkacyo waxaana muddada 100 cishe uu maamulka uu xoog u saaray dhisidda wadooyin cusub dhagax dhigid kuwa hor leh iyo dib u furid kuwa xirnaa maamulka degmada gaalkacyo ayaa ugu dambeyntii ganacsatada wax ku iibinayay hareeraha wadooyinka ee suuqa bartamaha magaalada gaalkacyo waxa uu dejiyay suuq ay ugu tala galeen inay kaga maarmaan in hareeraha wadooyinka ay wax ay ku iibsadaan هتسنتين راح اطلع بحراش كهاي من القبوب او نحاوله باي كنتين وايكم هدينايا الهي وين واحد تي راكتو او نمعه كراكتي الله يدينك يا عافماد بدن او بركه الله الله يسي شاه horumarinta maaliyadeed maxaa laga qabtay waxaa la fariisiyay systemka maaliyadeed oo ay ku shaqeynayso dawladda hoose ee degmada gaalkacyo iyadoona sidoo kale la sameeyay qorsho maaliyadeed ee sanadkii xiritaan xisaabeed waxaa la diyaariyay warbixin la xiriirta maamulkii maaliyadda waxaa la dejiyay miisaaniyadda sanadlaha dawladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaa la diyaariyay dukumeentiyada asaasiga ee waaxda maamulkii maaliyadda ee dawladda hoose waxaa la diyaariyay habraaca iyo nidaamyada siyaasadeed ee maaliyadda dawladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaa la diyaariyay habraaca iyo nidaamyada siyaasadeed ee maaliyadda dawladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaa muddada 100 maalmood lagu guuleystay in la sameeyo dakhli aruurin iyo habraac lagu shaqeyn lahaa waxaa guud ahaan koontaroolada magaalada ka bilowday qaadista canshuuraha waxaa tababar la siiyay shaqaalaha gaarka ee u xilsaaran soo aruurinta canshuuraha dawladda hoose ee degmada gaalkacyo qorshaha horumarinta amniga maxaa laga qabtay
maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa xooga saaray sidii looga shaqeyn lahaa amniga degmada loona xoojin lahaa muddada 100 maalmood uu jiray maamulka waxa uu xooga u saaray in wada shaqeyn xoogan ay dhex marto hay'adaha amniga ee ka shaqeeya degmada Gaalkacyo heer gobol iyo heer degmo waxaa isbedel dib u habeen xoogan lagu sameeyay amniga xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo waxaa la adkeeyay amniga kontaroolada laga soo galo magaalada iyagoo la geeyay ciidamo dheeraad ah si loo hubiyo cid kasta oo soo galaysa ama ka bixisa magaalada waxaa lagu soo koobay in magaalada laga soo galo wadooyinka weyn kuwaasoo la geeyay ciidamo booliis oo feejigan waxaa howlgallo baaxad leh laga sameeyay guud ahaan xaafadaha magaalada Gaalkacyo iyagoona lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo kooxo qas iyo falal argagixiso ka waday magaalada waxaa la xoojiyay howlgallada joogtada ee ciidamada ay ka sameynayaan guud ahaan magaalada si gaar ah wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Gaalkacyo waxaa sidoo kale ciidamo taraafiga la geeyay wadooyinka qaar siiba kuwa ugu muhiimsan ee magaalada waxaa baro ciidan laga sameeyay dhammaan 5 xaafadood ee magaalada Gaalkacyo waxaana la dejiyay ciidamo booliis ah si ay u ilaaliyaan nabadgelyada xaafadahaasi waxaa muddadaasi 100 maalmood hay'adaha amniga ay bilaabeen inay diiwaan geliyaan oo xaqiijiyaan amniga dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Gaalkacyo waxaa la sameeyay qorshe buuxda oo lagu diiwaan gelinayo dhammaan bulshada ku nool degmada Gaalkacyo sidoo kale muddadaasi waxaa la xoojiyay wada shaqeynta amni ee ka dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland horumarinta arrimaha bulshada waxay ka mid tahay shaqooyinka ugu muhiimsan ee dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyadoo laga duuliyo hirgelinta siyaasadda dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo u degsan iyo dardargelinta howlaha baaxadda leh ee horyaala guud ahaan dowladda hoose gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada waxa uu maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo kormeer lagu sameeyay baahiyaha bulshada ee ka jira degmada Gaalkacyo deegaanada hoos yimaada waxaa lagu guuleystay in la sameeyo qiimeyn sahmin lagu sameynayo ku dhawaad 50 tuulo hoos tagta degmada Gaalkacyo 5 xaafadood iyo xarumaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Gaalkacyo qaybta faydoorka waxay hagaajinayeen bilic soo celin ay ku sameysay wadooyinka weyn ee magaalada Gaalkacyo maamulka degmada Gaalkacyo ayaa wali dadaal adag ugu jira sidii loo horumarin lahaa degmada waxaana shacabka reer Gaalkacyo laga codsanayaa inay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa Gaalkacyo dhisan oo wadooyin leh isla markaana ka horumarsan meesha hadda ay joogto